kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni dul maray Rufadi Media maanta barnaamijka waxa inoogu casuuman Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa wasiirkii hore ee kalluumaysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan ugu horreyn ku soo dhawow Rufadi Media magacaygu Xaashi waxaan jeclahay Cabdiraxmaan horta waxa laga yaabaa dad badan oo daawadayaasheena Rufadi Media inaysan horta bal Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi si wacan u aqoonin bal horta waxaad noogu bilowdaa bal taariikhdaada iyo dhalashadaada iyo meeshaad ku dhalatay kadibna markaas aan gudagali doonaa arrimaha kale oo dhan waa gartay waa hagaag bismillaahir rahmaanir rahiim haashi aad baad u mahadsantahay waxaan salaamayaa dhammaan dadka daawada oo TV-yada iyo ka daawada shaashadaha iyo kula socda Rufadi maaragtay news salaanka baadi anigu waxaan ku dhashay magaalada Sheekh ee waqooyiga Soomaaliya marka ka baadina waxaan imi magaalada Laascaanood halka muddo yar ka baadi halkaas aan ka dhigtay quraanka iyo dugsiga hoose kadibna waxaan imi magaalada Muqdisho oo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare halkaas aan ku dhameeyay shaqadii qaranka halkaas aan iyadana ku dhameeyay dugsiga sare Banaadir loo oran jiray baan ka baxay marka anigu Mareykanka waxaan imi sanadkii 1977 halkaas aan ka bilay jaamacadeeda jaamacadda Pace University oo caan ku ah maadooyinka xisaabaha iyo wixii la xiriira cashuuraha iyo halkaas aan digriga ugu horeeyay ku qaatay ka baadina waxaan shaqo ka bilaabay magaalada New York ee magaalada wadanka Mareykanka shirkadda la yiraahdo Price Waterhouse Coopers hadda qayb ka mid ah loo oran jiray Coopers and Lybrand baan ka bilaabay New York halka waxaan ka shaqeeyay ilaa 3 sanadood markii dambena waxaan qaatay shahaadada la yiraahdo Certified Public Accountant ama qofka maaragtay khabiir inuu ku yahay maadooyinka maaliyadda iyo hantidhawrka iyo xisaabaha inta kadib waxaan u wareegay bank la yiraahdo Citibank xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada New York halkaana muddo 3 sanadood ku dhaweyd baan ka shaqeeyay kadibna waxaan tagay bankiga kale oo isagana la yiraahdo Solomon Brothers oo ah kuwa ugu caansan maaliyadda iyo arrimahaas investments la xiriira dhowr sanadood baan ka shaqeeyay inta ka bacdina waxaan u wareegay bankiga dawladda ee Washington DC ku yaala halka waxaan ka shaqeeyay muddo 15 sanadood intii aan halka joogay waxaan fursad u helay inaan waxbarashadayda sii wado marka laba shahadood baan qaatay ama degree mid master ku saabsan arrimaha dhaqaalaha iyo master kale oo isaguna arrimaha maaragtay maaliyadda inta ka bacdi waxaan shahaadada la yiraahdo PhD da ka qaatay arrimaha dhaqaalaha jaamacadda la yiraahdo George Mason University oo ku taala agagaarka Washington DC marka tacliinteedii khibradeedu waa ka inta kale ugu dambeysay waxa weeyaan markii aan PhD-deeda qoray book baan qoray ku saabsan Islamic banking ama maaragtay bankiga Islaamka marka buugaasina waa book hadda meel kasta dunida laga heli karo Amazon iyo meel kasta ku yaalo marka haddaan ku soo koobo inta ugu dambeysay kalena waxa weeyaan anigu sanadkii 2012 madaxweynaha isu sharaxay laakiin ilaahay ma idmin inaan markaa ku guuleysto marka inta kadib anigu xukuumadan hadda wadanka ka talisa oo ra'iisul madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Ali Khayre wasiiradii ugu horeeyay bilaabay baan kamid ahaa waxaan anigu wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda hawlkan oo iyadana xilkan oo aan hayay wuxuu ahaa guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada kaana waxaan ka ahaa xogeyn baan ka ahaa marka mas'uuliyad badan oo dhaqaalaha wadanka oo dhan baan mas'uul ka ahaa marka haddaan soo koobo waa intaa weeyaan anigu Dr. Cabdiraxmaan marka la fiiriyo background-ka dhinaca taariikhdaada dhinaca waxbarashada waxa ka buuxa yani cilmi aad iyo aad u fara badan tusaale ahaan 2 masters hal degree hal PhD waa aqoon aad iyo aad u tiro badan oo runtii qofku inuu 2 master intuu sameeyo marka hore degree sameeyo haddana 2 master sameeyo haddana PhD u gudbo marka dabcan dalka Mareykanka waxbarashadiisa waa la yaqaanaa inay aad qaali u tahay ma waxaad heshay deeq waxbarasho oo dawladdii hore ee Soomaaliya ku soo dirtay mise waxaad hayd qof isagu soo saaray ama cid kale taageerisay oo dhinaca qoyska iyo hadda noqoto arrimahaas ilaa ma hadii anigu wadanka Mareykanka wuxuu ku fiican yahay hadii aad arday tahay oo lagu siiyo shati aad ku shaqeyn kartid marka ama permit kale yiraaho marka waan shaqeyn jiray laakiin iskuulkuna waxay iga caawin jireen maaragtay waxbarashada lacag la'aan baan ku dhigan jiray laakiin noloshayda iyo waxa kale oo dhan aniga shaqaan qaban jiray marka aniga soo saaray runtii ilaa ma hadii marka sidaas waxbarashadeeda ku dhameeyay
gurmadkii haddaan dib ugu noqon tahay waxbarashada maadaama ay aad muhiim u tahay marka dugsiga sare ee Banaadir ka baxday shaqada qaranka ee gurmadka loo yaqaanay xagee ka gashay magaalada Muqdisho xaafadda Hodan dugsiga la Dhagaxtuur dugsiga dhexe Dhagaxtuur halkaas aan ka dhigay marka halkaas aan ka sameeyay shaqada qaranka maaragtay halkaas aan ka dhameeyay marka qolihii xalanay aaday marka damata xerada xalanaad ku soo qaaday 3 bilood oo tababar ah oo dadku wada mari jireen markay dugsiyada sare dhameeyaan marka xalanaad waa soo maray dugsiga shaqada qarankana waa soo qabtay marka laakiin shaqo kale kama qaban Soomaaliya waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay runtii taariikhdaas wanaagsan ee dhinaca waxbarashada iyo aqoonta wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasaaradda kalluumaysiga oo kamid ah wasaaradaha ugu waaweyn dalka dhinaca khayraadka marka la eego ayaad qabata waa maxay waxa adigu aad ku soo kordhisay wasaaradda marka la eego halkii ay taagneed iyo waxa aad ka ogaatay khayraadka dalka gaar ahaan tan badda anigu wasaaradda khayraadka wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda runtii mas'uuliyadda qof kasta garanay waxa weeyaan badda weyn oo Ilaahay nagu manaystay oo 3,300 kilomitir dhererkeedu yahay marka la eegana 1 milyan oo isku wareega oo kilomitir oo waxa loo yaqaan aaga dhaqaalaha ama afka Ingiriisiga lagu yiraahdo EEZ zone marka Soomaaliya Ilaahay mahadi khayraadka oo Ilaahay ku manaysto kalluun iyo wax kasta ku jiraan nasiib darro waxa sida dadka Soomaaliyeed oo dhan aad uga warqabaan wax badan oo runtii kalluumaysigaas oo dhaqaale ama dadka Soomaaliyeed ha noqoto ama dawladda ka soo gala cashuur iyo waxa ma jiraan marka hawlihii ugu waaweyn oo ugu horeeyay oo runtii aan anigu xoog saaray waxay horta in aan daraasaadka maaragtay laga hore looga sameeyay iyo aan ogaano kalluunka ku jira noocyadu yahay arrimahaas oo dhan markii ku xigtay waxa aan la kulanmay khawaraad badan oo dunida yaqaan arrimahan kalluumaysiga wadamada dunida ugu wanaagsan kalluumaysiga siyaasadaha kalluumaysiga sida ay u sameeyaan hawlahaas oo dhan baan u baaraandegay marka waxa noo muuqatay in loo baahan yahay marka ugu horeysa in la ogaado afka Ingiriisiga mapping baa lagu yiraahdaa in la ogaado kalluunka badda weyn noocyadu ku jira halkeebu ku jira meelaha kala duwan ee wadanka ku yaala hawshaas bilowgeedii waan bilownay laakiin maaragtay wali dhaxda looga jiro markaan anigu wasaaradda ka tagay arinta kale oo ugu muhiimsan waxa weeyaan aan ogaaday runtii markaan daraasaad badan sameeyo dad khubaraayo badan la sheekaystay wadankeena hadda dawladda miisaaniyadeedu waa 340 milyan boqolkiiba 98 waa mushahaare aada marka waxa lacag ama miisaaniyad loogu talagalay waxbarasho caafimaad kaabayaasha dhaqaalaha ma jiraan marka daraasaadkan ka sameeyay badda waxa noo soo baxday lacag dhan ilaa 2 bilyan oo dollar hadii ilaa muddo 5 sanadooda kaabayaal waaweyn oo hadii la dhiso oo loo diyaar garoobo ilaa 4 sano ka bacdi in la gaari karo in 2 bilyankii waa 1 milyan baa bilyana marka de waad garan kartaa runtii dhaqaalahaas xoog leh sidoo wadanka saboolnimada uga saari karo ama wax badan ugu tari karo marka qorshaan dejinay oo 4 sanadooda oo daraasaad aad u tafaqtiran oo sheegaysa sidii talaabooyinkii la qaadi lahaa si loo gaaro in dakhligaas oo kale uu soo galo marka barnaamijkaas waa yeelaa waxyaalaha kale oo runtii ilaa mahadi soo roobay waxa weeyaan Soomaalidu aad waxay uga dheregsan tahay dhibaatada ugu weyn ee haysta waa kalluunka oo sharci darro loo qaato waxa lagu qiyaasaa adigu ilaa 300 milyan ilaa 600 milyan in sanad kasta kalluunka laga dhaco sharci darro looga qaato Soomaaliya marka arimahaasi sidii wax looga qaban lahaa muhiimka ugu weyn bay ahayd oo aan maaragtay wasaaradda ka bilownay marka waxaan ogaanay maraakiib laga leeyahay wadanka Thailand oo ah maraakiib xitaa sharci darro iyo xadgudub ku sameysay wadanka Thailand inay xeebaheena joogaan Soomaaliya maraakiibtaasi waa 7 markab waana kuwa la yiraahdo jiriibayaasha ama afka Ingiriisiga trawler lagu yiraahdo jiriibayaashu waa dunida oo dhan waa laga mamnuucay sharciga kalluumaysiga ee dawladda qaranka ee federaalka iyo ka Puntland iyo gobolada badan oo dhan mamnuuc bay ka tahay in jiriibayaal xeebaheena yimaadaan oo ka kalluumaystaan sababtuna waxa weeyaan waxay maaragtay waxyeelo weyn u geystaan xeebaha u dhow meelo badan oo maaragtay kalluunka ku soo hirto oo maaragtay buurabadeedka oo doog ka baxo oo kalluunku aad iyo aad u jecel inuu soo dhawaado maraakiibta jiriibayaashu waxay sameeyaan intay jabiyaan bay waxay wadaan maaragtay birada dheer oo ay jiidayaan bay ku maaragtay waxyeelo weyn u geystaan
meelaha ay waxyoolaha u geysteen waxay qaadanaysaa 50 sanadood bay laga yaabaa inay dib kalluunkii iyo doogii iyo wixii jiray oo dhan. arrimahaasi waa arrimo waaweyn oo wadamada Shiinaha iyo wadamada Asia iyo wadamo badan ka sameeyaan. marka waa sababaha jiriiraha maraakiibta jiriibayaasha loo mamnuucay. marka maraakiibta aan kuu sheegayo waxa kale ay inkastoo sharci darre wadanka u joogaan waxa kale ay galeen dambiyo dunida oo dhan laga raadinayay oo maaragtay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Interpol iyo oo ah dad badan oo maraakiibta ka shaqeeya kalluumaysatada dadka ka shaqeeya ama dadka saaran oo maraakiibta saaran waxa laga soo qaaday wadanka Cambodia iyo wadanka la yiraahdo Vietnam. marka dadkaasi waa dad markii dambe aad loogu bahdilo oo si maaragtay xun loola dhaqmay oo shaqaalihii saarnaa oo maraakiibtan Thailand ka timi saarnaa bila sharci iyaguna sharci darrada iyaguna waa dad soo xoogsi bay u yimaadeen inay ka xoogsadaan badda marka dambana 8 bilood ama 9 bilood dib ugu noqdaan dhulkooda iyo ka xoogsi maaragtay waxay xoogsadeen wata. laakiin maadaama dadkan maraakiibta iska lahaa dad dambiyada galo oo maaragtay dad maaragtay dambiye gala waxay sameeyeen xoog bay ku hayeen dadkii jooga ku maquuniyeen oo dhowr sanadood bay badda ku jireen qaar bay xitaa la yiraahdo wax cadeynaya meelna badda lagu riday. marka dawladda Thailand waxa ay marka doonaysay dadkaas maaragtay ehelkooda joogay ka yimi Vietnam iyo Cambodia bay yiraahdeen marka dadka iyagii inay dhinteen baan u maleynaa. marka dawladda Thailand waxay la soo xiriiday dawladda Soomaaliya ay leedahay maraakiibtaasi xeebihii inay joogaan khaasatan xeebaha Puntland waxaan doonaynaa inaad gacan naga siisaan idinka wadankiina ka taliyo qarannimadiisa ka madaxa. marka maraakiibtaas dacwadooduna Interpol ku leeyahay waraadinaya. haddaan kuu soo koobo markabka mid ka mid ah waxaan macluumaad ku helay in ay iyagoo kalluun badan oo ilaa 500 kun oo metric ton oo kalluun fara badan oo qiyaastiisu la yiraahdo ilaa 5 milyan oo dollar kalluunka saaran oo sharci darro looga qaaday xeebaheena Soomaaliya oo wadanka Thailand markay galiyeen dawladda Thailand anigoo wasiiradii la soo xiriireen bay yiraahdeen markabkaasi miyuu wataa waraaqihii ay wateen bay soo direen adiga ka mas'uul oo bixiya shatiyada kalluunka laga qaato wadanka wasaaradda federaalka ee kalluumaysiga ee kheyraadka badda sharciga ay wataan ma sharci saxaba oo ay rabaan kalluunkan inay wadankan keenaan. sharcigii markaan eegnay waxa weeyaan waraaqa been ahayd oo runtii gobolada aan xaq u lahayn inay bixiyaan oo hawshii federaalka ahayd maarka ku xadgudbay. marka maraakiibtii waan qabanay dawladda Thailand baa qabatay. marka qabashadan maraakiibta qabanay saameyn weyn bay u yeelatay maraakiibtii badda Indian Ocean-ka ku jiray oo dhan inay markaa ogaadaan dawladda Soomaaliya inay soo noqotay. sharcigana loogu qabtayna waa sharci wadamada dunida oo dhan saxeexeen oo oranaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabto wadamada kale oo heshiiskaas saxeexay waxay ku khasban yihiin inay wadanka u qabtaan oo sharciga u mariyaan wadanka kalluunkiisa laga soo xaday. marka dawladda Thailand sababtay markabka u qabatay oo maaragtay amarkeygii u fulisay sharcigaasi u fulisay. marka markabkaasi runtii dhibaato weyn buu keenay oo dad Soomaaliyeed baa waxay lahaayeen annaka qaar kamid ah maalgashi baan gashanay. marka aad bay arinta uga soo ashkatoodeen. markaana dawladeena bay la soo xiriireen oo maaragtay madaxda wadankeena iyagoo goboladii dadkaas ay ka soo jeedeen. marka markabkaas waxaa la isku dayay in la sii daayo oo maaragtay si loogu sii daayo dadka. marka arintaana anigu aad baan maaragtay uga soo horjeesaday waayo waxaan doonaynay dhaqaalihii aan ku lahaa baddo ilaa 2 bilyan aan ka soo saarano. haddii uu arintaasi aan rabno inaan ku guuleysano waxaa loo baahan yahay sharciyada dunida oo dhan inaan u hogaansanaano iyo dadkii kaloo caawin lahaa dunida oo dhan iyo waxaas oo dhan kheyraadkeena ilaashado. marka taasa ka muhiimsan qaranka ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed wax lagu qaban lahaa. marka waa sababtan anigu markaa ugu adkaystay in markabka sharciga la mariyo oo markaa dunida ogaato Soomaaliya inay baraheeda ilaashanayso. nasiib darro waxaa la sheegay taas aan gogosano waxaa la sheegay in Thailand aysan iyadu wax wakiila kuma laha ama safiir kuma laha wadankeena. marka waxaa war ii sheegeen inaad dhowr jeer ku noqotay Nairobi si aad safiirkooda u jooga Nairobi aad arintan ogala shaqeyso si markabkaas jiriifka soo sameeyay
soo xaalufiyay soona xaday hantidii ummadda Soomaaliyeed aad loo xakameeyo loo hayo oo sharciga loo mariyo arrintaas waxa ka jira marka arrintaas safaaradda Thailand ku leedahay Nairobi baan kala xiriirnay maxkamad baa la soo taagay marka sidii waraaqihii iyo macluumaadkii iyo loo baahnaayo oo dhan iyo dokumentooyin waxaas oo dhan baan u geynay dawladda Thailand ay leedahay iyadoo nuqul maaragtay kii hore originalka aad haysid noo soo gudbiya marka safaaraddaas aad bay noola shaqeysay markaan macluumaadkii waan u gudbinay markii dambena Thailand fursad baan u helay inaan tagno marka dawladda Thailand arrinta aad iyo aad bay noola shaqeysay marka dadkooda inay naga qabsadaan marka waa dabcan u sheegteen markaaba iyagu deeqo waxayba ku jireen inay wax ka qabtaan laakiin maadaama maraakiibta xeebaheena joogto iyagu awood ay ku soo gaadhaan ayna jirin waxay dawladda federaalka ula soo xiriireen leeyihiin idinka wadankii ka mas'uula maraakiibta biyaha badda Soomaalidu leedahay ku jira gacan naga siiya si dadkii maaragtay dadkii saarnaa oo la leeyahay waxa lagu sameeyay si waa la adoonsaday ama waxa lagu sameeyay waxa la yiraahdo human trafficking oo sharciyadii dunida jabiyay Interpol baa raadinayay marka arrimahaas oo dhan biyihii Soomaaliya ku jiraan badeena ay ku jiraan marka dawladdiini bay leeyihiin idinka ka mas'uul ah gacan naga siiyay wax uga qaban lahayd marka baaritaankan waxa ka soo baxay inay laba sharci darro isku wadaano dhinacna ay badeeni jariifayaan dhinacna dadka iyaga shaqaalaha u ahaa adoonsanaya dhinacna kalluunka inay sharci darro ku qaateen ay ku qaateen marka arrimahaas oo dhan runtii wad ka hawlgasheen waa ka hawlgalay laakiin markii dambena waxa ay markii dambe saameyn iyo lug ku yeelatay sababta aan xilka uga tagay arrintaas waa xiisaha leh marka waxa la sheegayaa in maamul goboleedadii waraaqaha shatiyada ah siiyay bixiyay in badda dadka nimankaas jiriifayaasha ah la siiyo ay ku soo dacweeyeen oo adiga ka caawdeen markii adigu aad ku adkaysatay inaad sharciga marinayso isla markaana aad ogolayn kalluunka wadanka la dhaco arrintaana si loo joojiyay ay tahay in kuwan hadda damiga lagu hayo la ciqaabo marka arrinta muhiimka waxa weeye arrintaasu ma sax baa sida warbaahintu u sheegto ee ah in waxyaalihii xilka lagaga bedelay ay tahay nuxdoodu taa weeyaan waa waxa xilka laga qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu aad iyo aad baan aragtidayda u kala duwanaatay si arrimihii ku saabsan oo sharciga la marinayay marka anigana waxa weeyaan way ii cuntami wada ama waan mabda ahaan oo kale mowqif ahaan oo kale waan ka tanaasuli waayay anigu aan aaminsanaa in sharciga la mariyo marka arrinta weeyaan arrintaan anigu maaragtay xilka laga qaaday guud ahaan waa tahay maadaama dhaqaalayahan tahay oo dhinaca dhaqaalahana haddana inaad dhaqaalayahan tahay ku dheertaa inaad ku shaqaysay oo yacni aad hay'adaha ugu weyn caalamka iyo bankiyadan hadeertaa tirisay iyo tan kuwan kale World Bank iyo kuwaas ka soo shaqaysay waxaa isweydiin leh marna si madax bannaan adigu ma odarastay dhinaca khayraadka dalka Soomaaliya badda dabcan waad sheegtay inaad samayseen yacni wixii 4 sano kadib la gaari lahaa khayraadkeenu waxaa kaloo jira dhinaca xoolaha nool arrinta xoolaha nool marna arrintaas farma u qaado ma fiiris sidaan hore kuugu sheegay xaashi aniga ku yiri guddiga dhaqaalaha oo kala ah aniga xoyntiisa hayo marka maamulkiisa iyo arrimaha ugu waaweyn oo laga shaqeynayay xoolaheena dadka Soomaaliyeed uga dharagsan yihiin xoolaheena waxaan u dhoofinaa wadanka Saudi Arabia iyo Imaaraadka labada wadan baa ugu waaweyn meeshan xoolaha u dhoofino marka neefka oo dhan baan dhoofinaa marka haddii la eego qiimaha xoolaha boqolkiiba ilaa hadduu ugu bato boqolkiiba 10 weeyaan manaafacaadkiisa waxaan helaa dadka neefka oo dhan iibsaday baa marka hadii la sii qalo ama waxyaalo badan lagu sameeyo oo kale qiimaha boqolkiiba 90 inta kale maartay heli kara marka inaku waxyaalahan ogaano oo loo baahan yahay waxa in la sameeyo warshado hilibka oo kale Soomaaliya laga sameeyo in hadii la sameyn lahaa meelo kawaano waaweyn oo lagu qalo xoolaha oo marka dambe hilibka inta la qalo oo la qaboojiyo marka loo dhoofiyo dunida wadanka Turkiga wadamada Asia dhexe oo leeyahay Central Asia dhulkaas oo dhan waa dhul hilibka laga doonayo marka meeshii dadka Soomaaliyeed neefkoodii boqolkiiba wax 10 ka yar qaadan lahaayeen haddii aan qorshahan aan ku sheegay aan sameeyno waxa ka soo gali lahaa dadka Soomaaliyeed lacag billions gaaraysa million ma aha waa billion ka soo gaaraysa marka taasina waa meel kale oo maaragtay dhaqaalihii dadka Soomaaliyeed maaragtay ka soo gali lahaa wax badan haddii aan qorshaha cusub keeno sidaan badana kugu sheegay marka xoolahan haddii lagu daro takalo la sii xiriidhan haddaan ku sii daro waa midda beeraha weeyaan beeraha hadda saad la socotid wax weyn ma beerno dhulka
badan oo runtii ugu qanisan oo wax laga beeri karo waa dhulka nimankan xag jirka ay fadhiyaan marka dhul amnigiisu sugan yahay maaha marka way adag tahay in runtii dad badan ama wadanka ha joogeen ama ajnabi ahaadeen maalgashi inay gashadaan oo beero waaweyn iyo waxa laga sameeyo marka dad baa xoogaa yar bay soo saaraan laakiin wixii uu kartida ama wixii ka soo bixi lahaa hadday ugu badto 4% oo kale weeyaan wax ka soo baxa marka halkaasina waa il kale weyn oo dhaqaale oo shaqo abuur u sameyn lahayn dadka oo maxaan ku dhahaa dawladuna cashuur fara badan ka heli lahayd cashuurihii lagu dhisi lahaa wadanka iyo dariiqyada iyo waxbarashada iyo waxaas oo dhan kalluunkii ka imaan lahayd xoolaha ka imaan lahayd beeraha ka imaan lahayd marka saddexdaa ilo waaweyn oo dhaqaalaha waxaad u malaysaa meesha ugu yaran ladan oo xoogaa waxay naga soo galgalaan waa adhiga iyo geela aan dhoofino aan sacuudiga u dirno oo maaragtay dhaamala laakiin labada kale wax saasay nagama soo galaan waxaan rabaa inaan dib yar ku celiyo arrinta dhinaca badda runtii maadaama aad uga dhaqaalayahan tahay marba su'aal ayaan dhinac kaaga keenaya dhinaca dhaqaalaha oo dabcan wadankeena gaar ahaan arrimaha khuseeya waxaan rabaa marka arrinta aan doonaya inaan dib kugu celiyo waxay tahay markaad aragtay jiriifkan badda sida loo geliyo sidoo kale raadadkii burcadbadeedii iyaguna ka dhashay caradan jiriifka ma jirtaa wax qorshe ah oo badda in lagu ilaaliyo amnigeeda lagu sugo adigu ka wasiir ahaan marka wasaaradda joogtay aad hindistay oo aad keentay oo soo jeedisay saan hore u sheegay caqabada ugu weyn oo in haysato waa kalluunkeena sharci darrada looga qaato dhulkeena ma lihin ciidan badda oo ilaaliya waad garan karaysaa marka anigu qorshahan keenay wuxuu ahaa dowladda Turkiga 2 jeer baan tagay waxyaalaha kale oo aan qabanay wasaaradda waxa kamid ah heshiis baan la soo galay dowladda Turkiga intaan tagnay heshiiskaasna waxaan soo dejinay qorshihii ay inooga caawin lahayd farsamada iyo qaboojiyaal xeebaha la keenay iyo dooniye iyo si markaas oo maaragtay qayb ka ahayd laakiin arrinta kale oo weyn oo markaan waddanka Turkiga tagnay aan kala hadlay waxay ahayd waxaan ka codsanay dowladda Turkiga inay gacan naga siiso intaan ciidanka badeena ka dhisano 4 sanadood oo ugu horeeya in ciidamada badda ee wadanka Turkigu oo noo ilaaliyo xeebaha iyaga 4 sanadoodna hadii la haydmo aan tababarno iyo maraakiib ka gadano maraakiibta iyo waxaan ka gadanano kalluun baan ku siin karnaa marka oo maaragtay halkaas aan ka bixin karnaa marka qorshaha waa soo bandhignay annagoo marka diyaar u aniga wasiirka difaaca inaan tagno wadanka Turkiga oo aan markaana hawlaha inaan galno way had markaana ugu xilka ka wareegay laakiin arrintaas waa arrin muhiim ah waxa loo baahan yahay ciidan ilaalin kara kalluumaysigeena khayraadka ku jira badda mana runtii dadka waxa laga yaabaa inay u baahan yihiin dadku in loo baahan yahay maraakiib fara badan inay joogaan hadda cilmi waxa la isticmaalaa cilmigan technology oo la isticmaalo marka bahalada la yiraahdo droneska iyo satellites baa la isticmaalaa marka ma u baahnid maraakiib badan oo badeena weyn marba meel wax ka yaaladaan kuwaasa kuu sheegaya markaana marka aad ogaatid meeshii bartii iyadoo waxa la yiraahdo GPS ka la isticmaalo aad ogaatid 5 ilaa 6 markab un baad u baahantahay marka meeshii toos u taga oo markii kii maaragtay dhaqaaqo ka socdo sharci darrada oo markab ka qabta marka sidii uma baahna sidii dadku u maleynayaan inay xoolo fara badan u baahan tahay maaragtay mar hadaad adoo qalabka casriga oo dunida hadaad adeegsanaysid marka qorshe wanaagsan buu ahaa in Turkigu 4 sano in ku diyaar garoobano ay noo si ilaaliyaan heshiisna la galo wixii qalab laga iibsanayna kun laga bedesho halkeebu ku dambeeyay marka qorshahaas بالحقيقة هذا وربو حوس وكان كامس ينكروا سيران حكومة دوغة تجي لكن أرنتاس أرن دياره هاد أرن كانوا لحد دان كوجيس يدروا أرنتها وحويان كلون كوجوين أو دنيا أو دن وخالصن أو دغاله ودنيا كسو قلا وكلون كليدا تونا هليدا تونو هنا وحويان وجورا ويان حلق كوبان بوسوم ريلاشن لحبلود markay tahay sanadkiiba uu guuraa dunida oo dhan buu mara marka badeena markaas uu soo mara marka waa waqtiga la qabsada tuura marka waxa muhiim ah in maaragtay aad marka u diyaar garoodid hadii aadan marka lahayn warshado iyo waxa soo dhan inako wali talaabooyinka ma gaarin laakiin tawo horeyso bilowga in kastoo dhaqaale badan ka soo galeen laakiin wax la'aan dhaamo aad u dhaama waa shatiyaal waxa la siiyaa maraakiib dad iyo shirkadaha ajnabiga ama maraakiib ajnabiga oo marka dawladda siin kara dakhli shatiga la siiyo kala marka arinta ku saabsan tuuraha siday hadda u shaqeyso maaragtay khaasatan dhulkeena Afrikadeena dhinaceena u badda soo maro Indian Ocean-ka
shirkadaha shatiyada qaata waxay sameeyaan marba qolay gooni u tagaan wadankeena oo kale Soomaaliya hadii yimaadaan waxa leeyihiin lacag jaban baan rabnaa inaad nagu siisaan shatiyada aad ku bixisaan oo tuunaha hadii ayna jeclaysan waxaad ku maaragtay xisaabtanteen ama maaragtay ku gorgortanteen waa ka tagayaan Kenya u tagayaan hadii Kenya jeclaysan waxay u tagayaan Tanzania hadii ayna jeclaysan Mozambique ila South Africa marka anigu markaan wasiir ahaa meesha waxaan ogaaday in wadanka la yiraahdo Kenya, Tanzania iyo Mozambique isbahaysi bay sameysteen si ay uga gaashaamtaan si qoloba gooni aan loo maaragtay loo qiimo jabin oo ka kalbada saxa marka iyagu isbahaysi bay bilaabeen leeyihiin mid nooguma imaanaysan saddexda iyadoo wada soconna aan gorgortan wada gallo marka xoogaa horumar bay sameeyeen dakhligii ka soo gali jirayna kor buu kacay marka anigu markii aan shir aan sugu nimay wadanka Thailand ana talaan soo jeediyay oo wasiirka kalluumaysiga ee South Africa baan la hadlay marka waxaan Soomaaliya iyo South Africa ma ku biirto marka ilaa xeebta Soomaaliya ilaa South Africa ba isbahaysi maaragtay ku saabsan oo maaragtay xagga tuunaha oo marka meel qura ku gorgortami karno lacag badan ay naga soo gali karto aad bay u soo dhaweeyeen marka ana xilka intaana ka tagin waxaan ku ballansaneen in marka sida OPEC oo kale sida saliida oo kale iyo ku maaragtay ururka saliida caalamka midka tuunaha oo kale u dhigma annagu ila khayraad midna waa petrol midna waa kalluun marka arintaasina waan sameynay heshiiskeediina waan diyaarinay laakiin waa intaan maaragtay marka maaragtay intaan xilka joogay maaragtay bay arintaas waxa ka dameeyay intii heshiisyadaas aad ka hadashay dabcan kala xadista iyo gargartanka gaargaarka heshiis Shiinaha lala galay shirkado Shiinaha oo dhowra laakiin waa intii adigu aad wasaaradda joogin qiimaha dadka aad bay u dhaliileen marka 30 marka meelaha miyaa la yiri lacagta laga qaaday qolada waxaan ku arkay warbixin soo saartay qolada ilaahdo FGC oo qolada dabcan uu noqon doona adana marka fasiri doona wax yihiin laakiin waxa la yaab noqotay lacagta inay 1 milyan iyo charchar iyo xogaa dollarado dheer ay noqotay arintaas marka adoo khibradii aad wasaaradda ka shaqeysay iyo tay aqoonta dhaqaalaha iyo tan caalamka aad u leedahay labadaba isku daraya saddexda isku daraya ma kula tahay qiimo sax ay nimankaasi ku hawlgaleen oo lagu siiyay heshiiskaas anigu intii aan annaka wada hadalkii hore bilownay annagu wasaaraddu waxaan doonanay qiimo badan inaan ku helo tuunaheena marka wada hadalkan galay iyo wixii shirkadaha Shiinuhu ay yiraahdeen intaasaan bixinana wax aad iyo aad u hooseysay ahayd waanu ka diidnay marka waxa aan niri waxa kale aan doonanaa Shiinaha qorayna isku soo koobno ma rabno waxaan rabnaa wadamo kale inaan ku darno oo Thailand iyo South Korea iyo Japan iyo hadii suuroobi karto way hadaad wax iibinaysid waxa la rabaa dadkaad wax ka gabanaysid waa la balaariyaa si aad dad badan oo maaragtay macaamiilo ku ah oo meelaha waliba lacagta badan laga bixiyo wadamada aad u iibsado tuuniya jecel lacag badan ka bixinaya waa wadamada bariga Asia oo kamid yihiin Thailand iyo South Korea iyo Japan iyo marka Shiinuhu isagu dad wali lacag badan oo kala bixiya ma laakiin waxayna la noqotay waa markii ugu horeysay shatiga bixinanay marka in meel laga bilaabo oo xoogaa shatiyaal cadidan oo aan badnayn in maaragtay si tusaale ahaan oo kale looga dhigo dunidana u ogaato Soomaaliya inay diyaartay oo marketkeedii iyo suuqeedii siiladeedii ay soo gashay marka anagu qorshaha wadnay kaas waxa markaana waan noo cuntami weyday qiimihii iyo waxay doonayeen iyo maaragtay ay rabeen qoloyinka Shiinaha qoloyinka kalena oo wadamada kale aan ku sheegayana wada hadaladoodii markaas uu bilaabay marka anigu markaan meesha ka tagay anigu waxaan ka tagay wasaaradda iyadoo aan diidnay oo maaragtay qiimaha maaragtay lahayn ay ku qaataan dawladda Shiinuhu waxay yiraahdeen iyakuna dhaqaale iyo waxtar weyn baan inii dhisi doonaa xeebihiino qaboojiyaal baan ka sameyn doonaa oo ballanay qaadeen marka ballanada idinkoo tixgelinaya qiimo jaban nagaga siiyo tuulihiina annaguna waan ka diidnay waxaan wax dunida wax ballan dhulkooda khayraadkooda ku bixiya ma jira marka waa ka diidnay arrimahaas oo kale waa ka diidnay marka arinta waan maqlay aad iyo aad baan runtii qiimahan arkay markii dambe oo la soo daabacay oo warbaahinta aan ka arkay aad iyo aad bay dhibtay oo runtii
cadadka intaa la eg oo maaragtay shati in intaasoo kale la bixiyo ma qiimaha lagu bixiyana aad iyo aad buu hooseeyay runtii u hooseeyay marka waa nasiib darro weeyaan marka arinta intaas ka oran FGC waxay soo saartaa warbixino horta bal marka horeysa shacabka Soomaaliyeed FGC u fasir waxay yihiin okay afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa Financial Governance Committee waxa weeyaan waa guddiga maaragtay ilaalinta maaragtay maaliyadda marka shaqadoodu waxa weeyaan waxa la sameeyay ururka hadaan kaaga waramo sidii way ku timi waxa la sameeyay xukuumadii Xasan Sheikh waqtigeedii baa la sameeyay sababta loo sameeyayna waxay ahayd dad badan waa ka dharagsan yihiin umaleelmayo war cusub inaan u sheegayo musuqmaasuq badan baa ka jiray wadanka marka deeq bixiyaasha galbeedka ugu waaweyn iyo shirkadaha waaweyn waxay yiraahdeen bangi maaragtay sida World Bank iyo gruubo badan waxay yiraahdeen lacag badan inaguma aaminano maaragtay hadaateen xukuumadii marka waa inaan sameeynaa ururan annaguna ku jirno idinkuna ku wada jirtaan oo marka qandaraasyada waaweyn oo khayraadka iyo waxa soo dhan oo ka madax banaan dawladda oo aan marka gudoomiye waxa wasiirka maaliyadda oo wadanka waa laakiin waxa xubinka bangiga dunida sanduuqa lacagta IMF ta leeyahay European Union ka kamida waxa kale oo kamida African Development Bank kamida anigu intaan joogay maadaama guddiga dhaqaalaha xogeenka ahaa xubin kamida baan ahaa markii aan marakay wadanka joognay marka guddigaasi male awood ay dawladda u sheegi karaan oo oran karaan waxa sameeya laakiin wuxuu waa tala bixintaana waxa qiimeeyo aad u qadariya wadamada waaweyn oo wadanka Soomaaliya dhaqaalaha siiyo oo Amazon iyo lacagteedii waxa bixiyay iyo waxa soo dhan marka waxay leeyihiin hadii guddiga khubarada noogu jirta ay marka ka biyadiidaan waxyaalaha qaarkood oo wadanka ka socda marka anagu lacagtii iyo dhaqaalahan sii jirnay Soomaaliya waa yareynaa oo talaabo weyn ma ka qaadana marka baqrinta laga qaba darteed bay guddigu waxay leedahay qiimeyn weyn bay leedahay marka codkoodii inkastoo tala bixin yahay waa cod u dhigmo oo kale maaragtay awood weyn oo kale leh marka horta guddiga sida uu ku yimi waa lagu sameeyay taas waxa waxyaalaha ugu waaweyn oo guddigaasi uu ku badbaadiyay runtii dadka Soomaaliyeed khayraadkooda waxaad ka warqabtaan in xukuumadii Xasan Sheikh shirkad leedahay Soma Oil oo ah shirkad cusub oo ana weligeed bajirin la qooni in la siiyay inay khayraadkii iyo petroolkii Soomaaliya oo dhan iyada loo siiyay inay noqoto shirkadda maaragtay baaristeedii iyo waxa soo dhan maaragtay ku shaqale marka shirkadaasi waa shirkadda keentay shirkadda leedahay Spectrum oo ah tii badda intee maaragtay baritaan ku sameysay soo eegtay saliidaha ku jira xeebteenan dheer aan leenahay marka waxay ku kacday shirkadda baritaanka sameynaysa waxa laga bilaabay Ras Kamboni ilaa Gurceel oo galmudug ah Puntland meena gaadhin marka baritaankay sameeyeen waxay lacagteedu ku kacday 46 milyan oo dollar bay ku kacday lacagtaasi waa lacagta iyaga ku kacday hasaatee magdhow hawshay qabteen waxay u codsadeen 206 block ama maaragtay xidhmo 64 milyan ay sheegteen ayaga sheegtay marka xidhmooyinkii arkeen oo petroolka ku jiro xidhmooyinka ilaa dhulkaas Ras Kamboni ilaa meesha laga gaarayo Gurceel 206 maaragtay dhul oo kala duwan ba blocks baa leedahay oo kala ba marka ay ogaadeen in petrool ku jiro 206 marka waxay yiraahdeen anagu magdhow waa in loo siiyaa 12 kamida 206daas 12 kana waa 12 kan anagu xulanay waa markaan eegnay 206 waa 12 kan ka xulanay magdhowhana loo siiyo xogtina ayaga haya xogtii oo dhan iyaga haya dawladdu iyo waxa soo dhan ma hayaan marka waxay u dhigantaa oo kale maaragtay adigoo ilaahay ku sii daayay dawacadii oo kale u dhigantaa oo neefku doono u cunay oo soo cunaya marka iyagu sidee bay maaragtay dantooda eeganaya marka xukuumadii markaas jirtay waa u ansaxisay in 12 block la siiyo shirkadda Soma Oil iyo Spectrum isku xidhan baarlamaan baa jiray baarlamaankeedii awood u lahaa wuxuu ka qabtay ma jiro maxkamadana ma jiraan wadankeena waad ogtahay maxkamado dastuuri oo madax banaan ma jirto marka markii dawladdu ansaxisay waxa kaliya oo badbaadiyay waxay ahayd FGC da ama guddiga maaragtay
ilaalinta dhaqaalaha maaliyadda taas ayna badbaadisay. waxay yidhaaheen waxay noogu muuqataa 12 block oo magdhow loo siiyey waxay dhici kartaa inay ka buuxaanba 12ka batroolka xoogiisii oo dhan waxay noqon kartaa 10, 20, 30 bilyan oo dollar bay noqon kartaa magdhowgaas ay u qaateen 12ka block. marka waxay yidhaaheen guddigaas aan kuu sheegay FGC da la yidhaaho waxay yidhaaheen waa boob khayraadkii wadanka Soomaaliya oo dhan la dhacaya bay yidhaaheen. waraaq dheer bay ka soo saareen waxay yidhaaheen arrintaas waa khalad beesha caalamka iyo UN-kana waxaan u sheeganaa in arrintaa laga qabto. sidaasay ku joogsatay arrintii oo maaragtay shimbir bay inoo noqdeen nimanka xag ilaahay maaragtay kaaba inaga badbaadiyay. marka xukuumaddan hadda wadanka talada haysa markay timi waxa xukuumaddu hadda qorshe ay wadaa inay xaraashto ama maaragtay 206 blog inay maaragtay bilowdo in shirkado batroola inay maaragtay ku tartamaan oo maaragtay la geeyo. waad ogtahay shir weyn baa ka dhacay bishii February London oo mudaharaadii waaweyn ka dhaceen wadanka Ingiriiska oo ku saabsan markii laga hadlayay in la xaraasho blogska ku saabsan. sidaan u fahmay xukuumaddu hadda waxa kale dib u soo celisay xukuumadda imika joogta in 12kii blog hore looga duuday xukuumaddii hore oo FGC du hor istaagtay in dib loo soo celiyo oo la siiyo iyaga mar labaad 12 blogii in la siiyo. waa qorshe hadda miiska saaran oo Soomaaliya u saaran. marka arrintaasi waa arrin qof kasta uu garan karo inay tahay runtii waa lacagtaas haddii ay bedmo oo billions ka gaaraysa oo badeena batroolka ku jira waa wixii Soomaaliya oo dhan faqriga ka saari lahaa iyo saboolnimada oo waxbarasho iyo maxaan ku dhahaa dariiqyo lagu dhisay iyo beeraha lagu sameeyay iyo maxaan ku dhahaa waxa wadanka oo dhan lagu dhisa lahaa weeyaan. marka arrintaasi waa arrin muhiim ah weeyaan in dadka Soomaaliyeed u fiijigoodaan maaragtay aad iyo aadna maaragtay arrinta digtoonaada.